soo dhaweynta wafdigan madaxweyne gaas uu hogaaminayay ayaa waxa ka qayb qaatay maamulka gobolka kan degmada isimada nabadoonnada haweenka dhalinyarada iyo dhammaan bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan ee degmada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar. wafdigan ayaa looga hortagay meel dhowr kiiloomitir u jirta degmada Qardho waxaana dadweynuhu adeegsanayeen hal ku dhigyo ay ku soo dhaweynayaan madaxweynaha iyo wafdigu hogaaminayo. safarkan madaxweynaha waxa ku weheliyay gudoomiyaha baarlamaanka xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dawladda Puntland. madaxweyne gaas ayaa markii uu soo gaaray goobta soo dhaweynta waxa uu salaan la dhexmaray mas'uuliyiinta dawladda nabadoonnada iyo bulshada rayidka ee ka qayb qaatay soo dhaweynta madaxdaasi. wafdigan ayaa loo ambabixiyay degmada Qardho waxaana jiray dadweyne kala duwan oo isugu soo baxay wadooyinka degmada si ay uga qayb qaataan soo dhaweynta madaxweyne gaas. duqa degmada Qardho iyo gudoomiyaha gobolka Karkaar ayaa ugu horeyn ka hadlay xarunta barxadda oo ay isugu soo baxeen boqolaal dadweyne ah oo ka qayb qaadanayay soo dhaweynta madaxweyne gaas iyo wafdigu hogaaminayo. mudan madaxweyne xilligu iska kooban awgeed oo xuquuqdaheen oo gadaal loo farsanayna waxaan rabnaa inay soo koobno mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhow magaalada Qardho waxaan hadda ku soo dhaweynay barasaabka magaalada ku soo dhow barasaab shacab weynaha reer Puntland gaar ahaan gobolka Karkaar madaxweyne waxay taageersan yihiin rumaysan yihiin aaminsan yihiin siyaasadda hormoodka uu yahay professor Maxamed Cali Gaas mar walbana waxay taageero hiiliyo la garab taagan yihiin siyaasadda madaxda u tahay. gudoomiyaha baarlamaanka Puntland waxa uu kamid ahaa wafdiga uu hogaaminayay madaxweyne gaas ee ka soo ambabaxay magaalada Garowe waxaana bulshada reer Qardho uga mahad celiyay soo dhaweynta diiran ee madaxda dawladda ay ugu sameeyeen degmada Qardho. bacda salaan dadku aad bay mahadsan yihiin waxay muujinaysaa shacabka reer Qardho siday u dawlad u yihiin siday dawladooda iyo nidaamkooda u taageersan yihiin siday ula socdaan aad u mahadsantihiin maadaama aan nahay golihii shacabka dareen gaar ayna siinaysaa. madaxweyne gaas ayaa la hadlay bulshadii kala duwan ee ka qayb qaadatay soo dhaweynta waxaana uu sheegay in dawladda ay jecel yihiin dawladuna ay bulshadeeda u shaqaynayso. way muuqataa in Qardho ay jeceshahay madaxweynaheeda madaxweynuhu Qardho waa jeceliya taas way aad baad u mahadsantihiin aad iyo aad baan idinkaga mahadnaqaynaa soo dhaweyntiina sida gudoomiyihii baarlamaanku sheegay ka muuqato wadaniyadda iyo dawladda rabitaanka aad u muujinaysaan dawladdiina aad iyo aad baad u mahadsantihiin. waan la socdaa sida gudoomiyaha gobolku sheegay waana ognahay xaaladda abaareed ee ka jirta gobolka iyo gobollo kale ee Puntland intaba ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu madar khayr qabana siiyo. ilaahay waxaan ka baryaynaa in abaarta naga qaado. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu na soo qaboojiyo ummadan xoolo dhaqatadaana dhibta uu ka faydo ayaan rajaynaynaa. sidoo kale dabcan waa waqtigii guguna waxaan malaleeyahay bilaa ka dhiman waan rajaynaynaa marka inaan u toog hayno dhib kasta oo imaan karta in dawladdu ka warqabto si dhowna ula socoto xaaladda guud ee dalka u shaqaynayso. madaxweyne gaas ayaa xariga ka jaray xarunta madaxtooyada oo muddooyinka u dambeeyay dhismadeedu ay ka socotay degmada Qardho laguna guuleystay in la soo gabagabeeyo iyo mashaariic kala duwan oo dhawaan laga hirgelin doono degmada Qardho. madaxweyne gaas ayaa la filayaa intuu ku sugan yahay gobolka Karkaar gaar ahaan degmada Qardho in uu kulamo kala duwan uu la qaato mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada iyo bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan si uu wax uga ogaado xaaladaha kala duwan ee ka jira gobolka. madaxweyne gaas ayaa la filayaa in dhawaan uu ambabaxo magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari oo ay ka socoto qabanqaabo ballaaran oo lagu soo dhaweynayo madaxweyne gaas iyo wafdigu hogaaminayo ayadoo la filayay in uu madaxweynuhu xariga ka jaro dhismaha garoonka oo lagu guuleystay in la soo gabagabeeyo. Axmed Muuse Cali Axmed Jookar degmada Qardho xarunta gobolka Karkaar.